kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada waraysiga toddobaadka waxa marti iigu ah madaxweynihii hore ee dawlad goboleedka Puntland sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee dawladda Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku sugan magaalada Nairobi Cabdiweli oo wada socota siyaasadda Soomaaliya waxba kugu seegana xilli kala guura lagu jira Soomaalida waxa la bartay 4 sanaba in uun hadana doorasho ay dhacdo 4 sano waa dhamaatay doorashada waqtigeedna qallaasa ka taagan bal intaanan u guda galin doorashada iyo qaabka la rabay inay u qabsanto ama rajada dadka ay qabeen maxaa horta la dhihi karaa waxa laga dhadhansan karay hadalkii ugu dambeeyay ee madaxweyne Farmaajo waa maasan tahay Xamdi waan dhawahay inta dhageysanaysana waa salaamaya soon fiican baan loo rajeynayay dambe dhaaf insha Allah ilaahay ka rajeynayna maxaa kaaga baxay waxaan oran karaa gabar ciyaarta tubanaysa waxay tiri inay hogum baa tahay golo lagama oran karo hadal gobi ku haasawdo oo la gartana namaad oran waxaan u jeedaa waxa weeye dabcan haybadda kursiga ayaa nafaraysa in badan in aanu xoogaa aanu ixtiraamno oo wax ka sheeg hadda waxa uma u tarayo laakiin runtii khudbadda laga filayay madaxweynaha dhibaatadii dhacday dadkii dhintay qixii dagaaladii dhacay iyadoo Ramadaan ah markaasoo kale qofka madaxda waxa laga filaa dejin waxa la yiraahdo yani humility qofku in uu qof dabacsan dadka u dabacsan u naxariisanaya qaab noocaas inuu yani khudbad xambaarsan mustaqbalka iyo geedi socodkana wada fiican oo la aadayo inuu dadka u sheego ayaa la filayo laakiin ma aysan noqon wuxuu madaxweynuhu wali ku jira waxa la yiraahdo kiskawaal waxa la yiraahdo oo wali waxaad moodaa inuu dhabbihii oo runtii la eeday oo keentayba inuu hadda khudbad jeediyo oo aan filayo inuu ka laaban doono ku darsigii uu ku dhawaaqay ama uu saxiixay ayaad moodaa inuu wali dadkii eedaynayo inuu dawladda aanan aqoonin runtii oo ajaanib aanan garanaynin waxa yihiin uu eedaynayo waxaasoo dhani marka waxay ila muuqataa wali madaxweynuhu in uusan fahmin meesha la marayo iyo dhibta dhacday iyo xaaladda qalafsanaanteeda iyo meesha ay marayso inuusan ku baraarugin baa wali moodaa waa gartay Dr. Cabdiweli doorasho marka 4 sano la gaarabo heshiis waxa lagu yahay in doorasho la aado ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ka ahayd doorasho hore u soo qabateen qaabkee horta xilligan oo kala guurka ay wajihi jirteen oo wax u diyaarinayseen kala guurku mar walba dhibtiisa iyo shidadiisa wuu iska wataa laakiin marna ma aysan dhicinin xaaladda yani hadda la galay ilaa 2000 waa 20 sano la maraya Soomaaliya ma aysan dhicin maanta in ay keento kala guurku in uu keeno waxyaabo qaar la isku afgaran waayo laga wada doodo laga heshiiyo laga wada hadlo mas'uuliyadda la qaato la isu dhimriyo ayaa lagu waday anigu laba doorasho ayaan ka qayb qaatay 2012 oo ra'iisul wasaaraha iyo 2016 oo madaxweynaha Puntland ahaa marna ma aysan dhicin wax hadda dhacaya 30 sano ka bacdi inay qaxaan aad baan waxa uga helay nin la yaraaho dadka qaxaya kamid ahaa marna la wareystay oo yiri waxaan filaynay doorasho cod iyo qof ah laakiin maanta waxaan baraynaa doorasho qof iyo joodari dhabarka u saaran yahay in la qaxo waa dhibaato jirto marka de ilaa xadkaasi wax la filayo lagu talagalay ma aysan ahayn laakiin waxaan ku faraxsanahay dadkii ka hor yimid hawshan iyada ah ama ciidamo ha noqdaan mas'uuliyiin ama ha noqdaan musharaxiin in laga hor yimaado aan la yeelin marna sababtoo waxa weeye tan haddii ay marto Soomaalida ay marto waxay ahaan lahayd presence abuuri lahayd tomorrow mid kasto yimaadahay u yiraahdo anna waa ku darsanaya 2 sano anna waa ku darsanaya 4 sano marka inaan dictatoriyad dalkan meesha ay dhigtay waa la og yahay tiheedii baa wali nahaya 30 sano wali ka soo kaban la'anahay marka mid cusub aan aragteedii qabta in la aqbalo dadku ay yeelaan absolutely yani ma aha mid laga filayna Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma aha يعني 40 sano cimrigiisa in ka badan maxamed wuxuu ku soo qaatay dibad wadan dimuqraasiya ay ka jirto dalka ugu weyn dimuqraasiyada adduunka ugu weyn ayuu waliba uu involve ku ah siyaasadeeda axsaabteeda ka tirsanaan jiray xisbiga Republican Party-ga ayuu markaan xagga aan joognay oo aad uga tirsanaayo oo aad fugeed gareyn jiray marka yani qofkii laga filayay arintaas iyada ah ma aysan ahayn laga nasiib darro waxa ila tahay anigu runtii
wixii dhici lahaa waa dhaceen wax kastoo dhacanayana yani ilaah baa qadaray laakiin yani waxaan isleeyahay legasigiisiina waa u xumeeyey waqti badanna waa uu ka dhumeeyey soomaalida hadalkii madaxweynaha waxaa ku jiray in loo laabto September heshiiskii ahaa sidoo kalena waxaa ku jirta in baarlamaanka haddana sabtida la yimaado heshiiskaas khilaafkii ka dhashay waa waxa dagaalka sababay waad arkaysay madaxweyne Dani Axmed Madoobe oo kale maamul goboleedyada xataa hadda ugu dambeeyay waa kuwa ogolaadeen in doorashadii dhacdo sidee la isku qabadsiin karaa in doorasho shuruud la'aan ah oo September go'aanka loo laabanayo iyo in baarlamaanka haddana uu leeyahay hal yimaado sabtiga maya horta meesha sidee muuqata baarlamaan mas'uuliyadiisa qaadanaya ma joogo baarlamaanka waxa weeye ra'iisul wasaarihii dalka 7 daqiiqo ku eriyay iyagoon dhageysan eedda loo soo jeedin xataa iska difaacin oo soo jawaabin baarlamaanka waxa weeye yiri iyadoon wax dooda iyo ajenda ah oo laga dooda aysan jirinin gacanta loo taagay waxaan ku darsanay 2 sano marka waxa ii muuqata baarlamaan la yeeshay weeye baarlamaan marka waxaan maranayaa hadii berito sabtida duu tago waxaan maranayaa isna sidoo kale ayaa dhowr daqiiqo waxa la oranayaa madaxweynuhu waa ka laabtay labadii sane gacanta u taagay taasi gacanta u taagi doona si aniga la tahay weeye wax kale ay samayn karaan ma jirto sababtoo ah wadada la aaday way soo xirantay dhiig baa ku daatay qax baa ka dhacay marka inay aadayaan aqligooda leeyihiin anu u malayn mayo waxa laftirkeeda ku sii adkaystaan waa nasiib darro ayaga laftigooda ayagu marka waxay noqonayaan waxaan sharci ku fadhiyin bay noqonayaan marka Soomaalidu marka inay si kale u tashato oo meel kale laga aado ayay noqonaysaa waxa dhuminayaan legitimacy waxa dhuminayaan credibility waxa dhuminayaan wax kasta oo yani hay'adaha dastuuriga ah xaq u lahayn dhan bay dhuminayaan marka waxa waaye niman dhicna fowda dad ma ogtahay oo Mooryaan meel fadhido oo fowda ay u ekaanayaan noqonayaan laakiin waxaan ka rajaynayaa in aqligu shaqeeyo يعني رمضان بنا lagu jira dadka ay u turaano wax wanaagsan ay keenaan taban waxa weeye waxay ka laaban doonaan sida aniga la taasubtida isaga tagi doona khudbu jeedin doona wadadii la aad in xirantu sheegi doona ka bacdina in jika kale la aado ayaa la isku raaci doona taas waa taa arinta 17 October 17 September iyo 16 February waxaan qabaa hadii ay tahay markay heshiis siyaasadeed buu arintaas oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku heshiiyeen heshiiskaasi in loo fuliyo waa qabaa kow maadaama marka heshiiska ka bacdigi oo مثلا February markii ay dhacday goorma 19 May 19 ay dhacday xabadayntii dadkii iscayrsiga u dhacayay aanu jeednay oo sharciinta la weerarayay kalsooni darro timid arrimaha ugu muhiimsan marka waxa weey hadda aad la rabo in looga baaran dogo looga hadlo waxa kamid ah anagu aan aaminsanahay kula doorashada badanaa wax ka dhici doonta gobolada ka dhici doonta madaxweynayaal baa jooga haddii qoorqoor iyo maxaa la yiraahdaa guudlaawo iyo lafta gareen ay maxamed farmaajo rabaan inay u soo dhacaan doorashada dabcan marka waxa weeye dadka gobolada degan bay u taala arintaas sida ay uga hortagi lahaayeen laakiin 17 in la aado September February la aado arrimo ugu muhiimsan oo raba in laga taxadaro waxa kamid ah mesela doorashada lagu qaban doono xamar ee gobolada waqooyi taa waxaan aaminsanahay in sida yani uu nidaamku yahay sida mas'uuliyadu ay farayso in gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo arintaas garwadeen ka noqday ayaa la rabaa si dadka ay kalsooni ugu muuqato in markaad waxa muuqday maxamed farmaajo madaxweynuhu wuxuu muujiyay oo cadaatay in uu rabo in doorashada boobo la wax kala isku hortaagnay waa boobaya iyo ma boobay sidoo weey marka kalsoonidii isaga dhumiyay lagu qabilaha waana musharax madaxweyne weey marka ana budodeeda tumanaya gaar u tumanaya oo idinkuna marka waa inaad yani korjoogada ka noqotaan ciidanka yeelanayso marka waxaan aaminsanahay in badan in la dibciyo aan aad loo adkaynin oo xujooyin aan meesha jirinin aan la gelinin waan qabaa oo laba dhinac ka yimaado laakiin ay doorashadu u ekaato doorasho legitimate ah oo sharci ah doorasho credible ah oo loo qaateen ah doorasho acceptable ah oo dadku ay aqbali karaan ay leeyihiin Allah ilaahay doorasho sax ah ayaa noo qabsoontay taadiisan jirin wixii ka soo baxay waxay noqonayaan wax shuuba ku jirto lana aqbali mayo laakiin dib kala jirta waxaan ku sheegayaa in xamdi maxamed meesha uu gaarsiiyay hadda oo damici waxa weeye waxa uu raba inuu gaaro iyo damiciisa iyo qaabka iyo dariiqa u marayaahi mid gaarsiinaysa maaha sababtoo amaanta haddii madaxweynaha loo doorto si xalaal ah
la yidhahdo fair and square si sharciga ku soo baxay xataa haddii la yidhaahdo maanta si 4 sano oo dambe maxamed usoo xukumi kara dalkan meesha uu wax gaarsiiyey isagu iyo kulka iyo temperatureka iyo kalsooni darrada meesha ay marayso anigu umalaynaya inuu awoodi doono xataa inuu sii xukumo waa gartay haddii la yidhaahdo heshiiskii 17 September hal aado oo lagu soo heshiiyo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe Soomaaliya halkan waxaa taagan iyagana siyaasiyiin musharaxiin ah oo mucaarad ah laftirkooda intay fursad ka helayaan maxaa dooray lahaanayn dama waxyaabii hadda laga doodiyay kamid fiiri waxa loo baahan yahay si doorashada loo aado horta kalsooni la abuuro kalsooni la'aan waxa ku xiga waa qarax iyo isdil iyo dhibaato way marka kalsoonisto loo abuuro waxa kamid ah waa in la koobt gareeyaa dadka xaq bay u leeyihiin in ay waqtiga fiiri waxa la rabaa the rule of the game sharciga lagu dhaqayo ruleka waxa lagu dhaqayo ciyaarta waqti fiiriga qaabka loo sameeynayo waxa la rabaa in ciyaartooyda labada dhinacba ay u arkaan inay mid ay tahay cadaalada oo fair ah saadaradeed xaq bay u leeyihiin inay hadalkooda jeestaan ay yiraahdaan tanna waa ogol lahay tan wax baan ka qabnaa sababtu waxa weeye madaxweynuhu waa musharax ina waa musharaxiin marka ciyaarta the rule of the game should be fair inuu cadaalad noqdo la rabaa saas daraadeed waxaa loo baahan yahay in wixii ay qabaan oo kalsooni darraa laga shaafiyo lala fariisto oo mataqaana lala hadlo of course waa meesha ku jirta waxyaabaha loo baahan yahay in intaan doorashada la aadin in la xaliyo u baahanta oo abuuri karta kalsooni hadda waxaan u jeeday ra-iisul wasaarihii iyo waxaa wada fadhiya xalay musharaxiinta qaarkood waa kalsooni abuurid weeye marka waa gartay ra-iisul wasaaruhu wuu hadlay wuu soo dhaweeyey heshiiskii ay sameeyeen maxaa la yidhaha galmudug iyo hirshabeelle siyaasiyiin badanna way hadleen adduunyada laftirkeeda way hadlaysaa weli ciidamadiina meeshay joogaan is hor fadhiyaan oo saacad kasta wax dhici karaan waxaad moodaa ciidamadii laftirkooda in la siyaasadeeyo siyaasadda ay ku milmeen oo labadii dhinac ay la kala safan yihiin sidee marka ciidan midaysan oo qaran Soomaaliyeed oo shalay inkastoo ciidankii hadda la isku soo celcelinayo 30 sano burbur uu soo gaaray loo dib loogu celin karaa shalay meesha joogeen okay wallahi waa ma asan tahay waa wax arrin meesha ku jirta way waa nasiib darro runtii madaxweynuhu isaga uu isticmaalay national army oo ahaa yani ciidankii dalka institutionkii waxa ahayd inuu yani uu ka bari yahay oo aan inaba hal leekaatay usan ku lumin siyaasadda weeye shaqadiisuna waxay ahayd in uu la dagaalamo cadowga dalka iyo gudaha shabaab ah iyo wixii cadowga xuduudaheena wax ka baxsan inuu ka difaaco laakiin madaxweynuhu national army waxa loo bedelay personal army يعني waxa weeye army qonin leeyahay oo cid suudan u isticmaalo qofku doonana ku dilo qofku doonana ku cadaabo qofku doonana mataqaana ku xiro ku dhibaateeyo ayuu noqday isaga siyaasadeeyay iyo wixii kula talinayayba wax aad u khaldan ah waqti badan bayna soo qaadatay madaxweynaha shircinta hadda qaarka kamid ah oo madaxweyne Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh iyaba waa isticmaali kareen in badan oo ciidamo xilligooda rabaan ma fahamtay in badan oo kamid ah yani heerahooda way isticmaali kareen rabaan laakiin ma dhicin sababta waxa weeye nidaam ma ahayn saxna ma ahayn sharcina ma ahayn marka hadda ciidankii qaarkii isagu isticmaalayna wadanka gudihiisa joogaan kuwii kale oo rabay inay difaacaan sharciyada iyo nidaamkana iyana meeshii bay joogaan waxa weeye dhufaysa u qodanin marka waxa weeye hadii dhufays in la wada baxay noqonaysa madaxweynuhuna ciidankii uu ka keenay galmudug ee ku ka keenay shabeellada dhexe iyo beledweyne iyo ku ka keenay gado inuu ku celiyo ciidamadu inay shaqadooda qabsadaan kuwa kale marka ayagu hay nimanka inay difaacaan waana ku maasay inay difaacaan sababta waxa weeye marka qaarkood hadda waxa weeye fiiri violence waxa la yiraahdo yani cabsida iyo la dagaalanka qofka in cabsi geliso dagaal violence-ka waxa kale ah oo la saga celin karo is another violence way okay waxa weeye dagaal iyo hadda mid ila soo aado gacmaha waxa tiraan waxa weeye anna waxa noqonaysaa anna aan mid soo qaatin noqonaysaa marka waxa la rabaa madaxweynuhu hadda laan waxa uu fahmaya oo uu kaga laabtay mudakarorsigii iyo damicii waxa weeye cabsi kaga timid ciidanka xamar yimid iyo waxa soo wajahay marka madaxweynuhu aslong uusan arkin credible force xoog ka soo horjeeda isaga oo xoog u isticmaalaya wajihi kara waxay la talaftigiisu inuusan wadada sax qaadan doonin marka waxaan qabaa hadii la laabanayna ciidanka wada laabtaan hadii la kalunta doorashada laga aadayna dahawada joogaan
laakiin in la siyaasadeeyo ciidanka oo siyaasad la geliyahay wax meesha ku jira ma ahayn wax aad u khaldan weeye waxaana aaminsan hadda laftigeeda in ay haddii la heli karo ciidanku ay dhammaan ku laabtaan xorriyahoodii iyo dhufaysyadii ay kula dagaalamayeen shabaabka iyo cadowga madaxweynuhuna uusan awood u yeelan dambe uu u isticmaalo ciidanka sidii ciidan shakhsi isagu leeyahay oo suu doonana u isticmaalo waqtigu doonana isticmaalo ciduu doonana uu ku dhibaateeyo waa gartay dr cabdiweli baarlamaanka December ayuu dhamaaday sanadkii hore mas'uuliyadoodii kursigaas ay ku joogeen shaqooyin ay wali wadaan ma samayn karaan go'aamo masiiri ah oo dalka uu leeyahay absolutely waa dhageysanaysay gudoomiyaha hadda jooga oo runtii aan isleeyahay aad iyo aad mas'uul darra ka muuqata suu u dhaqmay iyo suu u hagay baarlamaanka iyo ku xigeenadiis waxaan ka hadlayaa maamulka nimanka haya oo madaxda ka ah baarlamaanka gudoonka isaga hadalkiisa maalin wuxuu lahaa ku darsiga baarlamaanku ma samayn karo sharciyadna uma haysto waxa ku darsiga sameeyay isagu ah marka meeshan dastuur la isticmaalayo iyo dastuur sidiisa uu yahay loo isticmaalaya meesha ma jiro waxa hadda muuqata the rule of the jungle sharcigii moogtahay duurka ayaa lagu dhaqmayaa wuxuuna noqday baarlamaan la yeeshay ama corruption ha lagu yeeshay iyo dhaqaale ama cabsi ay ka cabsanayaan hay'adda fulinta ee madaxweynaha noqotay uma muuqato hadda baarlamaanku mid dastuurna yani ixtiraamaya shaqooyinka loo baahdana qabanaya marka waxa hadda qabtaahi waa waxa weeye waa extra legal way wax oo sharci darro ah way absolutely sharci u baasin karaan ma jirto let alone mudocracy waxa oo kale la sheegay marka wax kasta ay sameeyaan December ka dambeeyay markii ay ka dhamaatay sharciyadu waa غير sharci way kama jiraan waa gartay dad baa ku barakacay hadda qaralaasii dhacay dad baa wax ku gaareen ama ku dhintay ama ku dhaawacmay attentionkii dadka wali waa sidiisii mas'uuliyadaas yaa qaadanay wixii dhibaato dhacay mas'uuliyad waxa qaadanaya the buck stops with the president waxa waaye mas'uuliyadda waxa qaadanaya sida loo kala sareeyo loo qaadanaya laakiin mas'uuliyadda ugu sareysahay qofka madaxda isaga madaxweynaha saaran tahay madaxweynaha ayaa ka mas'uul ah wixii dhacay yani dhibtii timid dadkii dhibaatoobay dadkii dhintay kulli aakhirana isaga la weydiinaya adduunkana isaga ka mas'uul ah oo loo raacanaya wixii dhacay of course يعني ما عيد كلا يعني كل مسؤول هذا قاضي. لبا أخلان لنا هذا. سندكي يأخلكي برلمانك. سندكوا واحد نقول عصب ووكيل هذا دولة قبلية هذا أي كم يديسينهن. كراستي دورش مركز مادة سومال لأن أنت بدن كراستي هذا مرن دلسة. عبد حاشم مش وكتاجي هو وجده. محل ليه كرا دور كهرتا أوليه. كراستي سومال لأن عبد حاشها وأخلك سراء. أوكل اللي حيته بنكي أقل سر متشرين. ساس درعدد مسؤولك ugu sareeya meesha ee waqooyiga ah wuxuu ahaa Maxamed Cumar Axtiqaari xilliga laakiin because ma jirin marka aqal sare hadda laakiin waxa jira gudoonka aqalka sare labada aqal ee mataqaana sharci dejinta midkood waxa u sareeya qofka waqooyiga marka dabcan roolka ugu weyn iyada ah isaga qaadanaya midada kale xaga raali ahado saaxiibkay Mahdi laakiin Mahdi qaabka u dhaqmayo uma ekayn nin mas'uuliyadii reewaqooyinimo ka turjumaya laakiin hadalkiisu waxa ka dareemayay wuxuu lahaa mataqaana round koowaad baan ku qaadanay meesha la yiraahdo galmudug iyo doorashadeedii tan ku qaadanay marka qof u adeegaya madaxweynihii oo aan ka ahayn dhexdhexaad marka ma u muuqanayo nin dadkii matalaya raaliga aado waana saaxiibkay haddana si badan baan hadda qaraabo u noqonay laakiin waxa ii muuqata in uu yani waxaan ka filayay sidaas ka duwan in uu u dhaqmayaan ka filaynay marka Cabdi Xaashi Cabdullaahi doorkiisu leeyahay waa muhiim isna maadaama uu yahay ra'iisul wasaar ku-xigeenkii in ay labadooda inta wada fariistaan go'aan fiican oo dadka qanciya dabcan matalaad dhabah ma jirto oo hadda gobolkii ay matalayeen wayaga waa goosanay oo dalka ka maqan marka laakiin awal baxamar baa lagu si la sugu hayo dadkii marka Cabdi Xaashi doorkiisu leeyahay midda kale Cabdi Xaashi wuxuu ku sifoobay oo dad badan oo Soomaaliya ku yaqaanaan inuu yahay nin oday ah oo macquul ah oo wise ah oo caaqil ah oo wadani ah ayaa runtii dad badani ay aaminsan yihiin anna aaminsan inuu yahay
marka taas ayaa weliba kalsooni dheeraada sii siinaysa isaga in mataqaanaa ku qabaan dadku shalay ra'iisul wasaare ahayd shuruucii baarlamaanka sidaan kale la shaqaynayseen maxaa baarlamaankan hadda uu kaaga muuqdaa ugu dambeeyay والله horta baarlamaanka doorkiisa shaqo fiiri marka la soo xuleeyay waxa soo fikirkan ah in konton qof soo doorato dadkii proponents kan kamid ah anigu dadkii ugu waaweynaado arintaas keenay baan kamid ah waxaan islahayn baarlamaan maadaama oday fikir waxa abuurmay ah wixii la oran jiray oday iga dhig aan xildhibaanka dhigay marka odaygii xildhibaankii isku milmeen marka qofkii uusan ahayn qof dad matale ah hal nin oo kale uu soo qoro marka waxaan niri hal loo celiyo dadka taasaa keentay waxaan islahayn dad matala oo meel ka yimid taasaa keentay inaan awal xaar baa lagu xiri jiray in gobolada lagu soo xiro inay noqdaan dad dalkii iyo dadkii ay ka yimaadeen matala laakiin uma ay muuqan waxay ila muuqdeen runtii haddaan runta kuu sheego baarlamaanka wuxuu maayo Soomaali soo mara baarlamaanka runtu saas weeye laakiin waxaan ka filaynaa ma ahayn qaabkii loo soo xulay iyo waqtigii galay iyo wixii laga filayay iyo si hadda u dhaqmeen absolutely wax isla maaha marka waxaan isleeyahay kalsoonida badan oo lagu qabi karaan ma jirto baarlamaankii kulay anu asaan isleeyahayna leadershipkiisuna leadership aad u liita way runtii ixtiraam bay iga mudan yihiin saaxiibadayda laakiin runtii in la sheego way say u dhaqmeen iyo mas'uuliyadda laga filayay ma ahayn ma fahamtaa Dr. Jawaari markii maxamed xuseen Jawaari uu baarlamaanka uu oday ahoo aqoon-yahan ahoo wasiir soo ahaan jiray oo macallin soo ahaan jiray oo konton sano soo shaqeynayay oo moogtahay yani buu ahaa ma garatay oo hogaaminayay Sheekh Shariif Shariif Xasan sidoo kale ciladiisa hal ahaado dad badan baa wax ka sheegi jiray laakiin aniga soo ila muuqdeen oday ahoo wuxuu ahaa marar badan haddii yani dhib timaado aan wax lagu qabsado wuxuu ahaa wax lagu qabsan karo maxaa la dhihi karaa hadda 2 sano oo kororsiga maxaa dawladda ku kalifay maadaama 4 sano ay joogtay waa xukun jacayl moogtahay fiiri horta qof aan rabin inuu iska sii joogaa ma jirto laakiin مثلا maalin waxaan dhageysanayay Barack Obama oo khudbeynayay 8 sano uu joogay laakiin wuxuu yiri hadii ay awoodi karo u jeclaan lahaa inuu sii joogo laakiin the institutions xakameeyaa jira oo ogolaanaynin teramkiisu hal sidee laba jeer ma tartami karaa Mareykanka ka bacay ma tartami kartid hadii lagu doorto 8 sano calafsanaysa marka waxaan rabay madaxweynaha iyo inta la miday maadaama baasha samada laga qoray ilaaha ba qoree Ramadaan waa ku jirnaay waxaan rabay madaxweynuhu inuu calfo inuu aamino shalayba isaga oo aan qabiil lagu dooran isaga oo mataqaanaa Soomaali doorat marka dadka shalay doorteen iimaanka lagu qabo oo doorasho la aaday ayay ahayd ku darsi marka wuxuu keenayaa waa sharci darro la aaday weeye sharci darro hadii la aadana waxay keentay waxaad aragtay qax bay keentay dil bay keentay dhibaatay keentay dhufayso la qotay keentay marka sax ma aha shalay ra'iisul wasaare ahayd ra'iisul wasaaruhu mas'uuliyadda buu leeyahay madaxweynuhuna shaqo uu leeyahay shaqooyinkoodana dastuurkay ku qeexan yihiin hadda doorasho lagu jiraa waliba qallaaso ka dhacday oo dhibaato iyo qax samaysay maxay tahay doorka ra'iisul wasaare roob la xilligan inuu qaato ay tahay dad badan waxay yiraahdaan ra'iisul wasaaruhu madaxweynaha i magacaabay baan waxaan u noqonayaa daacad kitaabka lagu dhaariyay kuma qorna in madaxweynaha daacad u noqotid shaqada u haata ayaa ku dhaaratay kitaab gacanta ku martay madaxweynuhu maxamed farmaajo qof baa magacaabay oo Sheekh Shariif baa magacaabo balansar ka dhigay haddana waa ku day xabadda weerarayay oo marka waxaa la rabaa marka madaxweynaha la yiraahdo Rooble waxaa la joogaa saacadii oo muuqan lahaa waxaa la joogaa saacadii oo waajibaadkiisu sida u yahay u gudan lahaa waxaa la joogaa saacadii mas'uuliyadiisu sida ay tahay oo inta yani geesnimo yeesho uu u fulin lahaa baa la rabaa ma garat waxa weeye waa mas'uul dalka iyo dadku mas'uul u yahay nin guri kama shaqeeyo mataqaanaa in uu daacad ugu noqdo madaxweynaha daacad ugu noqon kartaa wada shaqeyna ku yeelan kartaan wixii dastuurka ku qoran oo nidaamku yahay laakiin wixii ka baxsan oo qayr sharci ah oo dib keenaya ma fahamtay waxa loo baahan yahay in uusan wadada raacin waxaan rabaa in mas'uuliyadiisa qaato haddana ifafaala waxa iga muuqda inuu diido oo ku bogaadinaya oo ka laabto isaga madaxweynayaashii kale oo muddo ay diideen labadii madaxweyne kale iyo lafta garoon islaftiisu ku raacay marka hadda waxa muuqata ifafaale oo aad moodo inuu doorkiisa qaadanayo xalay inuu la kulmay
musharaxiintii waa bilow fiican weeye marka waxaan rabaa anuuna waxaan odhan lahaa hadda maadaama madaxweynuhu musharax yahay shaqada doorashada in mas-uuliyaddeeda uu qaato ra-iisul wasaaruhu waa gartay adduunyadu way hadashay beesha caalamku way hadashay midooda afrika waa hadlay maalin kasta waxaa laga hadlaa in wadankii gacanta uusan ka bixin ciidamada laftigooda inaysan siyaasaddii ku milmin haddana waxaad moodaa in warkooda uusan macno badan samaynayn oo wixii la samaynaya iska socdaan ma dowladdana dowladihii horeeta ka dhiiran oo ka geesnimo badan ma ayaga laftirkooda qayb ka ah waxa socda wadanka maxay warkoodii wax shaqaynaya uma eka horta way shaqaynayaan oo way shaqayn doontaa hadda barasharku wuu shaqeeyey in badan oo waana ku mahadsan yihiin beesha caalamku Soomaaliya way mudday moogtay soo garab qabanayeen soo tantaareynayeen waqtiga dhaqaale galay ilaa hadda ayaga masruufa beelo waa maqlaysay waa sii lahaa sixadan ku fadhinaayo lacagtana la ka goostay de ninka bixinaya biilkaaga marka qaarkood inaad dhageysatana waa muhiim laakiin sa hore u sheegay time frame-ka waqtiga anagu aan ku shaqeyno iyo qaabkii u shaqeeyaan adduunka kala duwan yahay anagu waxaan jecel lahay saanay sameeyeen khalad bay galeen maxaa markiiba loogu dhufan waay laakiin qaabka uma shaqeeyaan ayagu مثلا maamaha waxaa jirta waxay yidhahdaan why do you use poison when you can kill with honey haddii aad malab wax ku dili karto maxaad sun u isticmaalaysaa marka ayagu malab bay wax ku dilaane يعني oo go'aamadooda ay ku gudbiyaan kuma gudbiyaan sun iyo mataqaano ma soo hormariyaan marka iyaga waxa weeye hadal macaan your excellency waxaan rabnaa intaas samaysid laakiin ultimately markay baraka mala gaarto go'aankooda way qaadanayaan sanctionkooda iyo waxooda ay awalba ay samayn jireen oo sameynayaan marka baan ku sheegayaa maanta Soomaaliya dawlad sovereign away inagana ka reeb inaan muujino mas'uuliyad in aanu mas'uul u noqon karno dalkeenni waxaan uga baahanay AU iyo UN iyo haddii mas'uuliyaddeena aan qaadano oo dadka joogaahay maanta mas'uuliyadooda say tahay u qaadan lahaayeen maba loo baahdeenba in loo baahdana ma sababtoo arrintan waa arrin Soomaali u taalo weeye waxay ahayd annagu inaanu xallino annagu inaanu doodno annagu inaanu isqabsanno annagu inaanu miska isku raacno ka bacdan aan heshiino doorasho aadnay ahayd ma dhicin xoog iyo waxa yimid iyo beebe iyo maaragtay iyo mataqaana iyo ku darsi iyo waxaasi sharci daradaas keentay markii in dilna la soo farageliyo oo meel walba laga soo qayliyo oo marka iyagu badanaa waxay lahaan jireen korjeegteen marka anagu aan joognay oo doorashooyinka ay dhacayeen korjeegteen bay lahaayeen hadday wuxuu dhaqaale nagu saaidin karaan doorashadana way sameyn jireen laakiin mas'uuliyadda anaga qaadan anaga lahayn anagana barnaamijka wadnay waqtiga dadkuna heshiis bay ku ahaayeen يعني نظام ونكسن أيضا أنا شيخ شريف وترتمين لما مشرح بعناين برامج زركي مدحويني حدنا وحن شيسكو أهين ندور الشر عضو إن متقنا كدرس وآذي كرنا أنا لكن ما لنا آذي ما لنا ربي ما فهمت هل سنة نرسيه الرود ما بقى أيضا كشقينا أيضا إنه كل اللي برجرينا وحول بقى مركا تيجي بنا الشدة كله رئيس الوزراء مدحويني لوضع وترتمين حسن شيخ إيو عمر عبد الرشيد قداميه برلمانك كل مال بقوا سعر دولة قبلية دي هل جهة الله وضعها دور إلا أدلك اللي آدي أنت بقى لقى فريق محمد فرماتش إيه أنت لا سعود أنت بقى لقى واي dadka aad u taageersan dawladda waxay yiraahdaan xilliga doorashada tii Sheekh Shariif ah ku darsatay tii Xasan Sheekh ah ku darsatay tii Cabdi Qaasna kulli waxba socday maxaa gaar ah oo tan lagu ciirsanaya ma anaga diidanayn hadii مثلا waxa la yiraahdaa technical extension fiiri tii Xasan Sheekh shan bilood ba ku darsantay taayadii hal maalin kuma darsamin xilli Sheekh Shariif hal maalin kuma darsamin August 20 bay ahayd road map baarlamaanku inuu fadhiyo August 20 baarlamaanka fadhiyo 10kii September waxaan doornay madaxweynaha dadka Sheekh Shariif ku darsaday wax ka jira ma now tii Xasan Sheekh shan bilood ka waxay shan bilood heshiis lagu yahay oo xildhibaanadii ay mar hore soo baxeen oo dib kama jirin hadday wax noocaas tahay 3 bilood 4 bilood 5 bilood 6 bilood yaaba diidanaaba wax diidanaa ma jirin laakiin Bob iyo dhac iyo budo anaad budada tumanaya iyo aniga gudiga qoranaya ana ciidanka ilaalinaya mataqaana doorashada keenaya waxaas hadee waxay u muuqatay doorasho la boobaya taasa keentay kalsooni darrada kaasa waqti inuu jiitama keentay laakiin technical extension cidina ma diidana baa waa gartay Cabduliyow dal marka siyaasadiisa la qiimeynayo waxaa loo qiimeeyaa sida uu u wajaho siyaasadda arrimaha gudaha iyo jaangooyinta arrimaha dibadda dawladdan
shal ra'iisul wasaaraad ahayd mar kastana meel wax ka jiraan qalad wuu dhacayaa adinka laftirkiina qaladaad way lahaydeen markaad barnaamijka hadda ka joogtid maxaa isleedahay waxaasaa dawladdii ka qaldamay oo ay ahayd inay ka faa'iidaysato fiiri madaxweynaha kole haddii ra'iisul wasaare isagaa keensaday xasan cali khayre madaxweynaha waa la doortay kalsoonaa lagu doortay meel walbaa looga mudaharaaday waa la soo dhoweeyey niyad wanaag bay ahayd laakiin waddankaanina waxyaabaha maalan waqtigu kaga dhumay moogtahay waqtigaa inaad wax aan micnaan ku dhumaysa lama rabo political capitalkaaga wax wanaagsan inaad ku dhumaysaa la rabaa madaxweynuhu waqti badan wuxuu ku dhimeeyey federalismka inuu la dagaalamo dowladnimadii dastuurka waa annaga federaal baan nahay waa dastuur waa artikalada aan laga gorgortami karin federalismku in dowlad waxaa laga yaabaa maskaxdiisa inay u dambeysay inuu ku jirtay dowladdii hore oo moogtahay xoogga leh militariga ahayd awoodda lahayd laakiin dowladdaasi awoodda lahayd oo centralized governmentka ahayd meeshana dhigto waan ognahay moogtahay wax hadda aan haynaan ka dhaxalnay marka taa lama aadi karo marka in lala dagaalamo dowlad goboleedyadii la yidhaahdo gobortoraal baan ka dhiganaa nimanka madaxweynaasha sheeganaya waa isoos keenaynaa xaggaan yeelaynaa war federalismku mas-uuliyaddan waa la qaybsanayaa awooddana waa la qaybsanayaa adigu puntland for example madaxweynaha ka ahaa dee adigu ciidamadooda ma masruuftid oo shaqaaleed mushaar ma siisid oo caafimaadkeeda lacag ma siisid oo hal wajada ku bixisaa ma jiraan mas-uuliyadda dad baa qaatay baawarka marka waa lagula qaybsanayaa ogolow waa taas taa wey marka political capitalkii waxay ku dhimisay waxaan sax ahayn dabcan dee waxyaabo dowlad kasta oo timaada waxa ay samaysa waa jira oo contribution oo مثلا ciidanka hadda lagu amaanay in ciidanka مثلا yani ciidan mushaarkooda helaan ay mataqaana ciidan oo diyaarsan la dhisay laakiin ciidanka wuxuu noqday ciidan shakhsi marka doon la isticmaali karo marka qaarkood fikir waxa jira oranaya mugtahay ilaa yani siyaasadda laga heshiinayo de ciidanka xoogaas leh inaan ciidaba aysan tabar wahayn baba dhici kartaba laakiin ciidanku wuxuu ahayd in la dagaalamo shabaab fiiri ilaa maalinta yimaadeen ilaa hadda hal tuul oo xiriir ma garanaysa baydhabo beledweyne kismaayo maxaa la yiraahdaa balcad mataqaana all this waqti aan journal xoriyay ma fahamti inta ka dambeysana xogaa waxay ku sii dareen dowladda xasan sheekh maanta dee looma kala socon karo jawhar iyo xamar waa dadka lagu leynayo xildhibaanadii hirshabelle lagu leynayay iyo madaxdoodii wasiiradoodii ma fahamtay afgooyi lama gaari karo xamar baa canshuurta laga qaadaa shabaab dadka ka qaadaan maxaan faa'iidnay marka 4 sano waxay ku dhammaatay ma gormaa la dhisay ma dekedaa la abuuray ma jeeda baa la sameeyey ya ma institutions baa la dhisay maxaa la qabtay waxaa lagu dhimeeyey dagaal iyo colaad iyo in lala dagaalamo dowlad goboleed iyo in siyaasi la weeraro guriis lagu weeraro la xabadeeyo ma fahamtay intaasay ku dhammaatay intaasoo dadka qaarkood waxay u arkaan laga yaabaa dadkan ka qayliya yani social media waxay u arkaan dowladdii hebel bay cayrisay dowladdii hebel bay cayrisay dowladdii hebel saa ula hadashay wax noocaasa dadka lagu quudiyaa wax jirana maaha wax qabad baa la rabaa qofka wuxuu rabaa caafimaad qofka Soomaaliga ah maanta wuxuu ugu baahi badan yahay biyo amni caafimaad waxbarasho biyo nadiif ah ya buu rabaa maxaa laga qabtay hal iskuul ma dhistay hanoo sheegaan hal isbitaal ma dhistay hal isbitaal hanoo sheegaan maxaa lagu dhameeyey waqtigii lacagtii dhaqaalaha maxaa lagu dhameeyey ciyaal ka qayliya meelahaas in la siisiyo loo qaybiyo maarad this is nonsense midda kale waxaa la abuuray cancel culture wax la yidhaahdo oo maxay tahay oo ah yani body politicgii siyaasaddii waxaa lagu soo kordhiyey cay iyo aflagaado iyo adab darro oo dadka in laga dhumiyo akhlaaqda laga dhumiyo ayaa lagu soo kordhiyey marka waa wax waqti badan laga qaadanaya in dhibtaa la abuuray oo nala baday in dib looga soo kabto oo dadku wadda saxa qaataan yaaba dhibaataaba waa shaqo la dhib la abuuray wey hadda musharaxiinta tartamaysa ama madaxweynihii Sheekh Sharifaada ama Xasan Sheekh ahaado ama siyaasiyiinta sida Cabdiraxmaan iyo kaleeta iyo Khayri iyo kale dad badana madaxweyne rabaan shalayna waad arkaysaa 19 February wixii ku dhacay oo laftirkooda qaarkood dagaalkii uu saameyn ku yeesho iyagoo banaanbaxay lagu xabadeeyay
maxaa horta iyaga laga rabaa markii saan ay dhacdo oo dadkii attentionkooda uu kaco oo wadankii cabsi ay jirto oo dhiil ay jirto doorashana la rabo iyaga maxaa mas'uuliyadda saaran mas'uuliyad baa saaran mas'uuliyadda saaran waxay tahay in dadka iyagu mar walbaaba dabcan nidaamkani wixii khalada u samaynayo inay ka hor yimaadaan waa wax mucaarad ku samaysan yahay waa positive wax saxa waay oo inay tosh ku ifiyaan khaldaadka jira oo dawladdu samaynayso si dawladdu uga faa'iidaysato ama isu saxdo oo ay waleexato wadadii ama dadka loo tuso taasoo taa wey dhanka kale mas'uuliyad baa saaran oo dadka inay mar walbaaba wanaagga ku hagaan baa la rabaa laakiin aysan khaladka marka liidarku waxaa la rabaa dadka emotionskooda inuusan isagu laftigiisu uusan la soconin uusan raacin isaga la rabaa inuu caadifada jiheeyaan rabaa marka hadda caadifada kacday dadkaas buuqay dhibaatada abuurantay in la dejiyo maya in loo jaan energy-gaasi in loo channel gareeyo yaa oo loo duwo tog wanaagsan in la raaciyo ayaa loo baahan yahay taas ayaga laga rabaa oo aysan energy-gaasi uusan destructive noqon hadda maalan ciidamaha hadda yani isar fadhiya kuwa gobolla ka yimid waxaa la rabaa kuwaani ha dhowto in la abuuro jawi ay ugu laaban karaan xeryahoodii iyo dhufeysyadoodii ayse ayaga laftigooda hadda ayaga laftigoodii aan laga dhiginin baawar kale oo ha dhowto dhib noqdo laftigooda yani inaan abuurin warlords aan gacanteeda ku abuurin baa la rabaa waxaa rabaa marka ayaga xataa hadda ciidanka abuurin waxaa la rabaa inay ayaga hoos yimaadaan oo ciidan noqdaan ayaga ra'yigooda iyo fikirkooda ku shaqaynaya la rabaa oo laakiin dhanka wanaagga ah aan dhanka destructive-ka iyo dhibta iyo xumaanta iyo dilka iyo dhaca iyo boobka aan ahayn baa la rabaa waa gartay bulshada laftirkeeda Soomaaliyeed dad oo dhibaato 30 sano ku jiray ahayd oo dagaal ay soo daashadeen maxaa iyaga laftirkooda mas'uuliyadda laga rabaa wallahi dadkan waxay rabaan dadka Soomaaliyeed dad wanaagsan weeye dad wax badan u baahan ma ahaba dad wax badan ka dimaan gareeya oo weydiista madaxdooda mas'uuliyadooda ma ahaba haddii dad noocaas ahaan lahayn sida hadda lama ahaadeenba dadku dad masaakiina weeye ma fahamtay waqtina wuu hay dhibna way haysaa marka waxaa la rabaa dadka in loo dhimriyo kali ah sida wax loogu qaban lahaana in laga fakaro war adiga shalay waxaa la rabaa qofka Soomaaliga ah inuu yiraahdo I'm better of today than 4 years ago maanta ayaan ka fiicanay 4 sano ka hor ma fahamtay berita ayaan ka fiicnaan doonaa maanta rajadaas inay jirtaa la rabaa marka waxaa la rabaa qof kastoo yimaada wuxuu inuu ku kordhiyo dawladnimadaasoo ah mid dadka serve garaysa dawladnimada haddaysan dadka serve garaynaynin dawlad in la hada micna ma subinaysaba dawladdu waa ina aniga serve garaysaa individualka qof waa in u shaqaysaa ma fahamtay waa ina rabitaankiisa ku shaqaysaa waa in isaga caafimaadkiisa waxbarashadiisa biyihiisa jidadkiisa nolosha asaasiga dadka waa in la sameeyaa dawladnimada taasaa laga rabaa the government has to deliver to the public dawladdu waxaa rabaa dadka inay u deliver garaysaa la rabaa shalay ra'iisul wasaaraad ahayd madaxweynena dowlad goboleedka ka soo noqotay ra'iisul wasaaruhu mas'uuliyadu leeyahay iyo shaqo qabtay maxaa is leedahay xilligaagi waxaas aniga macna leh oo la taaban karo oo lagu xasuusanaa wax badan baa lagu xasuusan karaa kow horta anigu dalka xoreyntiisa sababtaan kuu sheegay oo waqtiga anigu aan joognay xamar August 6deedii baan ka saarnay xamar shabaabka balcad baan xoreynay oo jubbada hoose oo meesha la yiraahdo Kismaayo Baydhabo beledweyne waataan safar ku tagay waxaas oo dhan waxaan kala dagaalamayna kow waxaan haysatay dadkan lacag bay heleen dhaqaalay heleen waxaan nagu soo kordhay yani the farming majaacadii abaartii adduunka 60 sano oo waxmed baa inaan dadkii badbaadino xiriyo u sameeyno cunno siino waxyaabaha anagu aan qabanay kamid ahay xoreynta kamid ahay doorashadii dalka 69kiiba wadanka ugu dambeysay doorashada wadankiisa lagu qabto waxaan awoodnay inaan ku qabanno inaanu 120 iyo 135 oday isu keenno inaan xildhibaanadii xamar ku xullo lagu doorto taaka sokow dastuurkii aniga Sheekh Shariif aanu sameynay August 2deedii 2012kii aanu baas garaynay ayaa wili kor loo hayaa oo 9 sano ka bacdi maxaan ku sameynay draftka u horeeyay waxaan sameynay February 20keedii September baan sugu yar sameeyay guddiga madaxda ka ah ninka la yiraahdo Jawaari September 19 February 20keeda the first draft of constitution waa haysan April 20keediina draftkii u dambeeyay final draft of constitution ka haysan
dastuur baan samaynay dalkii baan xoreynay doorashaan qabanay hal sana ku samaynay intaa maxaa kaloo nala ka firi kara waa gartay xilligu meel gaar nooga xigay xukuumadda rabaahin dhaqaalaha hadda ay heleenna dekadaasa waxaa laga heli jiray haddii u badato $700,000 bishii bilna $900,000 markay u badan tahay imagine intaasaa lagu shaqaynayay maxaa is leedahay cabdiweli gaas haddaan ahay waxaasaan ka qoomamayna oo xilligaas ay ahayd inaan sameyn laakiin i dhaafay oo kaa qaldamay wallaahi halkaasana wax badan baad qabatay aniga de ambitionkayga oo qofkaahay waa meeshiisa laakiin maxaan qaban karnay oo aamis garanay halkaasano wallahi hadda kuma sheegi karo wax hadda anu aan qoomamo hadda aan qabo ma jirto waxa weeye waxaan isleeyahay halkaasana waa dadaasheen waxaa qaban karteen waa qabateen iyo weliba dheeraad marka hadda wax hadda i dhaafay oo inaan doorasho galo oo madaxweyne noqdo waa jeclaan lahaa ma dhicin laakiin taa laftigeeda mar walba aniga waxaan aaminsanahay wixii ilaahay kuu garto baa wanaagsan ilaahay hadduu kuu garto madaxweyne ay ku wanaagsan tahay waa lagu ducaystaa haddii aysan ku wanaagsan wixii kaloo ilaahay ku garto wixii ilaahay ku gartaa mar walba wanaagsan sideedaba ما فهمت أضو أما جعلوا أما جعلان وحيلاقي كوكر تاو وناكسن وحيلاقي قرتي ما أنت دميش أن شوغان الحمد لله كواهي وحن شو شغين كرا وتصور شغي وحن قصوغا مكرا واقبتي وأن كفر حسنا وحن قبتي أما هن قبت الصومالي أما هن قبت بنتلاني وحس لا هي وحن وناكسن بعد قبتي الحمد لله وحيلاقي قلت سيه وأنا جنا واسمي سبرت بودلان وخبط كولا بصدح معنا له بودلان أي أيضا ما أنتي وهذه أكتر بودلان أيضا قعدونا نقيمد وهل ديار أو كذي مالك كدك تان لهين maanta waxaan ka soo tagay iyadoo labo aeroport international caalami ah Boosaaso iyo Garowe kii gaalkacyo aan ka soo tagay waxaan dhan hadda aan sameeyay ama garaacda han noqoto waxay ahayd yani mashaariicda anigu aan ka ahaa mataqaan bilowgeedii anigu aan sulka ka aabay ahayd wadooyin dalka Garowe markaa imid hal wada ku taalo shaariqa la yiraahdo maantana qofkii taga uu arkaya institutionkii dawladnimada oo dhan oo de waxaanu hay'adihii dawladda oo aanu dhisnay ama ha noqoto dhismahoodii ama ayaga laftigoodii nidaamkoodii iyo shuruucdooda ha noqotee ma tirin karo yani haddaad waraysato wakaaladda biyaha Puntland waa kuu sheegaysaa intaan ceel qodnay iyo 30 sano la soo dhaafay intaan qodnaa badnayd aan joogay ama ha noqoto ceel ama ha noqoto waro dadka in la waraabiyo oo yani so many things caafimaad waxbarasho wax badan Cabdiweli waxa la yiraahdaa xilligii Cabdiweli uu wasaaraha ahaa adi muddo aan 2 sano gaarin sanadii beer qiyaastii ahayd Cabdiweli wuxuu ahaa nin rago si fiican xilligaas ka sokow Soomaaliya hadana Puntland ay ugu taagsato wax uu qabanay shaqada dawladnimada taas ka xoog badnayd maxay kula tahay adiga wallahi waxaan leeyahay aniga mid walba niyad iyo wanaag baan ku shaqeynay midan oo Soomaaliyana de waxaan qaban karay hal sano oo garan kartaa وأنت كون شيء والدستور لقرأ دراسة لقبته ذلك الله حريه تذكر كل بدبادية أو عبارتيه كبدنا ما قبل كريم هذا شو سنة هيري لها طبعا واحد ما قبل لها صومالية تن لكن وقت بان هلاي يعني أنا كيرت هاي الدم وقتها مسؤوليتنا وأتقنا كرتها دولة قبلية وياه وأي كيرتها لكن أنا بدلني الصومالية ما كانت علين تنا مركان جوك سد عذا وزارة الصومالية بنا كوش شقيني تنا أيضا اللي يداري بدلانه وناك بنا كوش شقيني haddana yani hadda xilwan ordaya ma jiro laakiin hadda imudana Soomaali meel kasta oo joogo wanaag baan uga shaqeynaya anigu sidee fikirkaaga ama taladaada maadaama aad doorashooyin hore aad ka soo qayb gashay aad leedahay waxaasaan tala aan siin lahaa in doorashada loo wajaho oo doorasho lagu najaxo oo dhammaan qaybaha ay ka qayb galaan oo Soomaaliyana ay ku nafisayso oo xilligan aad leedahay waxaasay sameyn karaan doorasho lagu wada qanacsan yahay كو لبا صدح أها إن الخاضو فيري وكحمها والله بايو وح هدا أرتا كلسون ذي وين ما تهد هدا حلو بينرت كلسون لسدبا هدا دور الشو دتك وطن كلها مدحوين هدا هدي اللي هذا وح الله دورت ما فرماتشو سعادي الله دورت أو فيرن سكوير بكهلي قرحنا دمجرته سويت حويه فيري دور الشذا وح مهم إن تهي legitimate شرعي إن تهي إن تكريدبل لو قاتين إن